الرحمن الرحيم وأنا ونفسي دمانتي بخيرتها هودا نقرأ سقطاي هالكن واستوديوها جلوس ميديا أي كل هذا هاي مقالة أوسلو أو أنا عاوة هالكن قبض دونه ورئيسي يهيسو أنا كسر دوينينو ولاشين إذن عمر برخات أو فنان عانا أو dadka badankiisu ay yaqaanaan dadka afka Soomaaliga ku hadla heeseeda ay aad u jecel yihiin aniguna si gaar ah aan u jecelahay waxaan ku leeyahay idin marka hore ku soo dhawo runtii sabax waan dhawahay farxad gaar ah tahay inaan caawa kula kulmo anigoo aad ku mahadcelinaya adiyo dhammaan TV-ga Bolis aad baan u salaamay walaal aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad baa idin u mahadsan tahay waxa kale oo ayaguna caawa halkan nagu la sugan فايسة يوسف أو كميدا أيضنا داودياشا أما مرتدا جلس عوا كورس ميدي جروب عوا مرتدا هالكنوعا إن رحمة جامع أو أيضنا كميدا مرتدا أيضنا صدق له إن أيضنا هالكن عوا نقول قاعدة نسا عويس كان أذكى قروح ذو بدن فنك يسودانته أنه كورة يسمونه إذن عمر برخد يهسه دي إن عجيب كها وحق رئيس ولا يسودي هالنبلسون وحق فرصة ماذا نوعها إنجنير جمال أحمد أو أسأقنا حاجة دم إذا كسر عبد الله هذه لهي كده إذن وحن كلها هاي سودو مرة بعدين مرصد حابة وحن عاق ورئيسنا مجالدي أصلا ومجالدي أطفال كصوب لوضي أدي بوير ومجالدي كنا قنتي كجورستي تعرف كل شيء ومجالدي كصوب كرتي وحبيك هرية اللي هو ورئيسنا مرينيا ما هي كلها مقطع والله صباحي فرحة قاري تاي أنا وجعلانها ورئيسي هو رئيسي مرتين ماشى عاد صادقت بان كنا قمي أروح كنا جاي مجانا كنا ولا داني وأدير روتين داي جعلانها ورئيسي اللي قاعدة وحدنا طلبات رسلت فرحة قار وزوج وبكين كون مهنية أي الوقت أبي بعد ما حصلت هاي وحنا مرينا إن الوقت ده جدونا الدلوع دي فنك يسودان هسه بضعها إذن هسه أبنا أفرز برمج عاوة أنا جاي يداوي ضياشة استوديو هاي نقول سوان يداوي ضياشة هذا إنك داون دونا بقى وعطوما runtii haddaan kusoo qaaday heesaagii mid ka mid ah hees aad dadku jecel yihiin wiilashin dhaayo ayaan ku furlaa aad iyo aad baan u jecelahay heestaa laftigeeda heesaad qaado oo aanan jeclayn horta ma jirto laakiin inkastoo ii kala qaybsan yihiin waxaan leeyahay kusoo dhawow heestii dhagaysi wanaagsan iyo daawasho wacan
هذا وحين كنا نبي هستي ويرشين ده هيدا هستن هدي أنا خطأ ويديو يا له هستي ياسمين هستي واحد سمي أقوال أنا دي وقانية كنا الوطن كإنجليزكا ملك عبد الله حسين عولو عبد بانو سلامية سيدو كلا كمان مغرورك عبد الوهاب عم فرح بس كنا الإنجليزكا أنا عبد سلامية مرغلبة وكل رأي لحق أدخل معان موسيقى بشير هنونية عبد سلامية سقي بيبي سي حسكيسة أدخل وانية waxaanu ka sugnaaba waa heestii aad noo soo doortay ee labaad
malaynayo dumarkoo dhan inay si gaara ay u jecel yihiin heestan waa tahay heesta xaggii dalabka ayaynu usoo kacaynaa iminka iyo daawadayaasha horta waxaa heestaa caawa ka xaqabeelaya inta halkan joogta inta hawday naga daawan doontaana way nagula raaxaysan doonaan heesta darmaan ayaa waxaa dalbaday injineer jamaal heesta darmaan ayaa sameeyey heestan darmaan waxaa sameeyey walaalkay abwaan siciid cawaale ku nool ingiriiska aan aada u salaamayo musigo walaalkay ilyas diris oo ku nool waddanka jabuuti oon aada iyo aada u salaamayo isaga iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa mar waliba soo qorxi doona heesta u tumay dubisto walaalkay axmed wilaahi maxamed furle oon aada u salaamayo isaga iyo alfanaanada asma xaruurtiisa dhammaan ayaa isaguna codka kulanay waa tahay heestan waxaan u malaynayaa waxa gaarka ah ee uu ku jeclaaday jamaal ayaynu la dhuuxi doonaa waa jamaal waa farsamo yaqaanka golis media group oo xagga dambe ka dhageysanaya heesaha farsamadana ka wada heestii waxaynu sugnaaba waa heestii darmaan
heestan oo ah hees qaali sida aad u sharaxday uu sameeyay abwaankeena weyn maxamed sugaan laxanka uu ku laday Mustafa Kiko codka aad adigu ku qaadayso cajiibka ay heestu ku darsatay waxa weeye abwaanka sameeyay laxanka ninka sameeyay adigii qaadaya intiiba waxa tiraraslo waxa kale oo ka sii daran haddana halka maanta lagu duubayaa waa Oslo oo waa studio guls ay ku leedahay magaalada Oslo gabadha heesta dalbatayna adiga ay ku soo wareejiyeen heestan waxaa dalbatay walaashay Raxma oo aad igu qaaliya igula soo stuudiyaha aad salaamayo mar waliba aad u jecelahay ay dalbatay waa tahay inta aynaan u gudagelin weli heestii daawaha ay soo saaran tahay way soo socotaa bal waxaan doonayaa midhar yar oo kooban in aan ka weydiiyo idin heestan sida igu maqaalaha waxaan maqlay in adiga lagu sameeyey qisada laga sameeyey iyo ujeedada lagu sameeyey wax yar ma nooga taaban kartaa ها عادي ويان runtii heestan hees ugu qaaliya heesta markii uu abwaanka aabbahay maxamed saleebaan geelle uu sameynayey maxamed sugaal geelle uu sameynayey runtii shucuur ama dareen oo isagu qiyaastay oo markaa kamid ahayd ani iyo carruurteedabo ayuu nolosheedii ayuu markaa ka sameeyey wala uuna ogeynba wax naga dhexeeyay ama dee something heestii buu ilaahay soo doolashay ilaa markii dambe rumowday sidii reerkii reer ku noqday markaas saas heesta ka sameeyey ما شاء الله هيستا قيمها بدن لي أي دربتي ولا شيء رحمة وحنا مرينا واحد بدن بيكون رحمة سيدا دكتور بيو دربتي واتن هيستي كسر هذا وحنا كسبنا بوائد
إنه واضح إذن halka aynu kaga soo gudubnay heestii Brackeville aan ku weydiiyo su'aal yar ku saabsan fankaaga intii aad fanka ku jirtay horta fanaaniintiina daba waa kana sii beddeltay fanaaniintii hore way dhibaato fara badan bay u soo mari jireen waalidkaa u diidi jiray xataa wax walba sidan iminka isugu dhow yihiin may u suuragal ahaan jirin innaba intii aad adigu fanka bilowday wax dhibaatada kaala kulanta والله هذا بيشي لو طبيعي لكن ده مسكت في عقبات في رمضان فكلية رنتي مع واي كرتو ده حقي ريو أما حقي موسيقى أما حقي فاميلي كمان أرتبط هذا بنصيب أنا حاجة ما وين أما كان حاجة مثلا أدب ما تصنعي كل الدنيا لازم تبقى قدامي waxay ku soo beegmeen xilli wax waliba ay kooban yihiin oo inta badan meel laga wada heli karo sida aynu laakiin sheekada ku hayno fanaaniintii hore aad bay hawlo soo kuma kartay waa si baa dheertiin baa la oran karaa inkastoo dhinaca kalena idinka nasiib badnaayeen oo ay ahayd inay waxba meel wax laga yaabaa idinku imkayna abwaanka musicianka in midba meel ka doontaan laakiin iyo intaba meel bay dad meel lagu soo hagaagabay ahaayeen aynu kaga gudubnaa inta waxa aynu gudbaynaa wali dalbashadii baa socota halkan waxaa fadhida Faysal Yusuf oo iyaduna heesaha idil kamid ah aad u jecel Faysal Yusuf heesta ay dalbatay waxa weeye heesta la yiraahdo Mililaco heesta yaa sameeyay midhaha eriyada iyo muusikada heestan waa isku qaaliya waxa sameeyay isla abwaankii heesta dalmaanaha may sorry abwaankii heesta English dhawlaha abwaan Abdullaahi Xuseen Cawlo ku sugan Ingiriiska eriyada muusiga waa Ilyas Dirsan aad u salaamay mar walba duubistu sidoo kale furan leh oo aad u salaamayo تعرف كلامي وحنا هذا سلامي ولا شيء فيسا وراح هذا قصتي يقول سوى استوديو أنا بتشعل هاي النوات هاي فيسا نقول بدو خيسي اللي إيه بروح نقول إيه دونا علينا هسه ضربتي أو أنا أقول عيار دونا وات هاي أنكوريتي إذا الواحد كسبنا بقى وهستي ميللعو
aniga ayaa waxa aan dalbanayaa heesahaaga ka mid ah oo aan si gaar u jecelahay ma ku diray jacayl weli heesta la yidhaahdo bal midhaheeda cidda samaysay muusigeeda waxoogaa bal iyadana nooga taataabo aad baan ugu faraxsanahay runtii sabaaxay kugu mahadcelinaya adiga rooda faysa iyo dhammaan bulshada kale kusoo stuudiya injineer axmed dhammaantiin waa mahad gaara aan loo doonin heestan haddaan kaga warramay eriyadeeda hore abwaan siciid awaale aada igu qaaliyo jooga ingiriiska eriyadii laxankaba musigo waa halkii bishin hanuunin aada u salaamayo studio waa marnaba aan loo duwa halkii studio jk oo isaguna ku sugan dalka stockholm magaalada suudan gaar ahaan dalka stockholm aada aan u salaamay dhammaantood codkan waa aniga waa tahay qof walba waynu la eegay baan maraynayaa heestan aan idhaahdo garismeydii ayaa dalbatay mise aniga gaar ahaaneed bal aynu wada dhegaysanahay idle waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo heestan inkastoo heestan heesaa kala soo baxay ay tahay aniga ujeedada ula soo baxay way ila laabnaanaysaa laakiin aan ku weydiiyo bacdamada xaqlihii heestan dee ka warhayay aad ahayd ujeedada heestan dad badan baa aada u jecel anigoo keliya maaha su-aalo fara badanna waa la iska weydiiyey heestan ma ku diray jacayl weli sababta loo sameeyey iyo ujeedada laga lahaa haddii aad wax ka og tahay balan intaan nayno ku qare waxoogaa nooga taataabo والله صباحين خطوة أنا سؤال في عنك جواب أنا هي مرتي لكن هذا مجرد سير بربارة عن إنسان يسمع وجهه هيس بدن أو يقالي ولا لبعضن هيس كبدن هذه اللي يستر إنجليزكا سنة كل بدي يكون يلا بدي عن هيس تصديق مقالة أبوان كسمية بخصوص عفلية كسرن أيدي في عكاين هذا رتي واحد كان يسوي دقف عائلته هي قف دبق أرضية أنا واحد كستول يراضي يو هذه لقد ضبيبية هذه لقد ضبيبية وأنا مرة أنا كباين كان لسه
marka heesku qaali si gaar ah u jecel intii mudane tahay ka warkii deegatamay martii kamidin xaqada kale aad baad mahadsantahay may heesta quruxdeeda iyo qiimaha ay leedahay darteed baan ku weydiiyey waana hees la jecel yahay dadku ay aad u jecleen shakhsiyan aan si gaar ah u jecelahay marka waxaan jecelaystay in aan wax ka ogaado imkana waxaan kaa sugnaa waa heestii ma ku diray jacayl weli Oh,
واتهاي وحنا سوق على إذا لا قلتي إيه قبل برنامجك أنت أين سوق قبل برنامجك وحنا دوني أنا عن وحقايا كاس ويديو ولي فنكاني فنانة آذر أكبر بدن هي سمعان ما شاء الله عياتها فنكا مهدات ولهاي أو فاميلينا وحدة ولهاي أما برام برهذا قبيلة وحيابها نوعاسة سمين شري باتري مسوا وحن أدو هذا يارتيو إلى هذا الحقوق دقيق. والله صراحة يرتاح وساعات كتب إنه فنوا هوبي فنوا دحل ارتوي ترى تيا شيء أو أهوانين أساس مين جري لكن أنا كريه هان فاهم كم كانوا هات أنا بهوبي أنا بس كشعر كهوبي جيتا. واتهاي إن تصوير تاعنا حتى أنا سوق ذبنا هي شيء إنه كسوق بقبيني أو أنت على إنه برامج كسوق بقبينه إن هسه اللي هذا دنتكور أيام دنيا يدنا بل إن عندنا قصي صورة مركورة عدة سمايسي إن إيو عدة لحن كأي موسيقى كور راعسي إيو قصيدة اللي قسمي لفت جيدة كل هسه قاربا مالينيا إنه قارب كويهين إن بلا يدنا هسه وحقا ورنا قصي كده بنروح نكاسبنا وهستي لفتي إن أصلا تريد وحسميه إن أبوان هذه وقالية إلى دقيقة مقالة أصله ولكن يوسف ورد آدو سلامية لحن كوا إسلا لحن يستايق آدكي وقالية مصطفى كيكو هاستا waxaa la sameeyay waqti hore oo dhowr toban laga joogo runtii qisay gaara sidaasi barakay muusigu waa kay Axmed Saalax Qaasim aan salaamayo dadkan waaniga marka haystan waa aniga gaara aad ma xasatahay heesta waxaa jirta kulli iyada oo afar page laba page baad ugu qaadaa labada kalena waxa qaadaa xaajigaagii hore ama xaruntaada aabbo marka hees way isla qaadi jirteen ma aragan oo heestay idinkoo wada qaaday laakiin heesti waan dhageystay isagana goonaan ugu dhageystay adigana heestan adigoo qaadayna fikir u dhageystay marka waa wada lahayd ma heesta markii hore ها heestan waa wada qaadi jirnay weligiiba muddo dheer markii laga sameeyay qisaan iyo isagana saas wada qaadi jirnay bari hore markaa imka qof waliba maadaama dee qofku meel kale kala joogaa meel kale maqan yahay qof waliba kaarkiisa u qaadi karna way dhici kartay laakiin heesta lantaali oo wada qaadi jirnay baa واتهاي أربعة محطة هاي شرحات أقولك بدنا إيه عندنا قصة هستا يمكن واحد نكاسب لنا هو هستي قيمها بدنا يو فكي معنا يقل بسرعة
waa tahay iminkana waxaynu soo gaarnay sida aynu hore u sheegnay guntii iyo gabagabadii waxaynu kusoo gabagabeynaynaa laba heesood haddii ilaahay idmo heesta hore waa hees la yidhaahdo dege heesta macnaheeda iyo midhahay xambarsantay heesta kolley la socotaynu ka dheehan doonaa yaa le heesta iyo midhaa ciddii samaysay musica ciddii saartay dabcan codku waa adiga heestii oo aada noogu xigsiiso markaad noo dhamayso aad baan uga mahadcelinaya sabax markaste heestan ereyada waxaa sameeyey abwaan igu qaaliya abwaan saciid awaale ku nool ingiriiska iyada sameeyey ereyada iyo laxankaba muusigu waa walaalkay yaas diris oo marnaba ilaaweyn mar walba aan salaamayo duubista walaalkay axmed weli sidoo kale aan ilaaweyn mar walba salaamayo codkuna waa aniga
haddana waxaa la soo gaaray waqti iyo gabagabadii barnaamijka waxa ay jecelahay inaynu heesta aynu kusoo gabagabayn doono hees wadani ah inta aynaan heesta u gudbin waxaan jecelahay kasoo qaybgalayaasha sharafta leh Fayse Yuusuf Raxma Jaamac injineerka yaga Jamaal Axmed oo injineer iyo farsamo yaqaan iyo adduunka oo dhan isku qabsaday dhammaantiin bay inaan idin mahad celiyo sida sharafta leh caawa martida noogu ahaydeen gurismedia martida ugu ahaydeen mar labaad iyo mar saddexaad ba idin si gaara ayaan adigana kuugu mahad celinayaa sida sharafta leh ee aad barnaamijka noogala qayb qaadatay ee aad noogu timi iminkana waxaynu sugnaa waa heestii wadaniga ahayd heesta midhaheeda iyo laxankeeda cidda samaysayna waad noogu deeqi doontaa horta sabaxay heestahay dambaysaan oo gelin halkan caawa waxaan ma qiyaasi karo dareenkayga iyo yani shucuurtaydu say tahay aniga oo aada iyo aada ugu mahadnaqaya horta ugu mahad celinaya marka ugu horeysa golis media group oo ugu horeysa adigoo sabax qoraxa qiimo aada iga mudan iga taagan walaalan aada u jeclay ah runtii ahna dee family ani dhaade waxaan mar labaad u mahad celinayaa walaalkii Axmed oo ah injineerka productionka fadhiya ee isku dubradii programkan waxaan mar labaad aanan ka tegay oon kiilooy midigii bidixweyna dadkii walaashay Faysa waan aada u jeclahay walaashay Raxma Jaamac waan aada u jeclahay dhammaan hablaha igu qaaliga reer Oslo aan aada u salaamay halkan ma soo koobi karo runtii ugu horeysa walaashay Cadar ha ku xigana dhammaantood reer Oslo mid madana caawa ka baxee halkan aada uga salaamay dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed meel walba oo dunida dacalada ku joogaan Oh
qalbiga ilaa iyo wadnaha ilaa iyo maanka ilaa miirka aan ka salaamaya my designer walaashay oo ah designerkayga Xaliima Maxamed Cali oo leeyahay cimrigaha jiro mar waliba top 10ka dee labiska iyo cashadana la yaabtaan taariskayga iyo dhammaan taageerayaasheeda iyadoo ayaa uga farayareysata halka man aad uga salaamaya qofka u baahan ee doonaya in design loo sameeyo wadaad soo xiriiri kartaa Xaliima oo mar waliba ajeesa iyo xagga dambe ka xayeysiin jirta aad baan u salaamaya mar waliba waxaan thank you so much